السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أصحابتي نازلين بيوتي شانل كحرن كسو dhawaada maanta halkan waxaan rabaa inaan ku sameysano biisa aad u macaan badan una fudud aa guriga ku sameysan kartid insha Allah. waxaan filayaa dhamaantiin inaad ka heli doontaan. halkaas waxaan ku haystaa waa qaando leebata, kadib waxaan ku soo darsanayaa sokor iyo cusbo ku soo darsanayaa wax yar sokorta cusbo marka wax yar isku dhaqaajinayaa, kadib waxaan ku soo darsanayaa waa biyo aan qandac ka soo dhigay. biyo aad qandac oo waxa kuleel lama aha, fartaada gacantaada gelin kartid, cabaara ku heli kartid oo kaleeto waaye. kadib waa kana waxaan sugeynaa 3 daqiiqo, kadib waa isku soo noqonaynaa. waa ka saahay leebatadeena sidaas ay noo noqotay. kadib waxaan ku soo darsanaynaa burkeeni, waa koob iyo bar oo bur ah. biisa weyn sameyn dooni, biisa adi oo dhexdhexaad ah medium oo kala sameyn doona insha Allah. marka waa ka saa koob iyo barki burka marka ku soo darsado kora waxa uu soo darayaa qaando saliid bikal kuma dar dooni intaas biyo ku dhigaaya leebtada daadi biyo ku daray qiyaastaas oo kale ta biyo u dhigaaya bikal kor mu dar dooni insha Allah. marka dintaana si fiican isku dhex gelinayna, isku dhaqaajinayna burkeena. marka soo diyaarsan oo isku soo noqonayna insha Allah. waa ka saahay burkeena sidaana usoo qasanay oo jeedin oo maleynaya jileeciisa soo jiid maay sidaana loo baahan yahay. marka meel soo dhigayna adi 10 daqiiqo kadib soo noqonayna burkeen intuu noo qamiiraayo. marka burkeen intuu noo qamiiraayo waxa si sameysanaynaa pizza sauce keena si sameysanaynaa. marka halkaas waxa ujeedaan waa digsi dabka soo saartay, wax yar saliid ku soo shubay, saliid badan ma ahan sida ujeedaan sauce keena diyaarsanaynaa. adi sauce iska fudud waaye, adi sida taqaanid ama dalac bilaash fahmino wax dhanaan leh loo baahan yahay biizada dhow marsatid. halkaas waa ujeedaan 2 xabo yaanyo iyo kabsar caleen iyo toon isku soo shiidi waaye, wal fududeen hal mar isku soo shiid ma fahmino. marka waa kaasa inta marka aan ku soo shubanay kadib waxa ku soo darsanaynaa 2 qaando oo yaanyo shishiida. yaanyo shishiida daartid yaanyo marka shiideys waa ku shiidan kartaa, daartid sidaan oo kala kor ugu darsan kartaa sida adi aad jeclaatid. marka yaanyo shishiid ku soo darsana hadan waxa ku soo darsanaynaa wax yar cusbo ah, waan dabooleynaa. kadib inta noo si kareyso yaanyadeena waxaan si gudagaleynaa oo si diyaarsanaynaa chicken tiya si shiilaneena ma fahmino. kasaba ujeedaan dhinacaas ugu soo baxnay. halkan waa kasa chicken teena rabnaa inaan ku shiilano. halkaas paana meeshaan ku haystaa wax yar oo saliid ku soo shubaya, saliid oo macaan lahayn waaye. chicken teena ku shiilo la rabaa ma fahmino. marka waa kasa saliid markaan ku soo shubo inta ay karkaraysa sugaaya. halkaas saliideen marka ii soo karkartay waxa halkan ku haystaa waa chicken steak. marka chicken ta waan adi si yar u soo jarjartay ma fahmino, si yar u soo jarjartay. hadan waxa ku soo darsanayaa waa spices keena. halkaas ku haystaa waa cumin powder iyo coriander powder iyo maraq digaag oo caraf wato waaye, cusbadiisana wato, cusbo ma loo baahno. marka inta marka ku soo daro si fiican isku dhaqaajinayna. waxa loo baahan yahay isku shiishid ma dabooleen waaye chicken ta daboosh biyo ka dhalaysa, biyana lagu daraayo. marka intaana si fiican isku shiileena nala socda. sida ujeedeen chicken sidaan qurux badan ayuu nagu soo baxay. sidaanan ka rabnay hadda marka sauce-keen waa diyaar, chicken-keen waa diyaar. burka marka intuu noo qamiireen fiirinayna insha Allah nala socda. waa ka saahay ujeedaan burkeena uu noo qamiiray. burka markuu noo qamiiray marka biisadeena si diyaarsanayna insha Allah. marka waa ka saa burka saaribni u qamiiray. halkan waxa ku soo diyaarsanay waa saxankii aan biizada ku dubi lahaayay, wax yar saliid soo mariyay. saxan kale ku fidira gacanta le ku fidira waa ma fahmino. marka waa ka saa hadaartid kasha ku fidsan kartaa, balse saana gacanta isla simaaya aan ku fidinaaya. halka saa sidaan le maanta ku soo waday. kadib hadana farkeetada sidaan ku soo yeeleena insha Allah. sidaan farkeetada ku soo yeeleena. marka waa ka saana la socda. ka saahay farkeetada biizada burka kulli ku soo yeelin. halkan waxa ku haystaa mozzarella cheese, halkan waxa ku haystaa chicken tea iyo tomato sauce keeni iyo barbarooni iyo basal aan soo jarjartay waayo kor hadhow u shubi doono insha Allah. da tomatada marka sauce ama sauce-kaas aasas soo marmarinayna. koraas soo waxaa loo baahan yahay ina geesadan si fiican u karsiisid.
marka waa kaas dhinacna kaaga badanin dhinacna kugu yaraanin marka waa kaas saas ku soo dhameysanay hadda marka waxa soo qaadanaynaa mozzarella cheese oo xoogo soo qaadayna kulli ma ahan saas kor ugu soo shushubeynaa kadib waxa ku soo xijinaynaa chicken teeni sidaan ku soo badanaynaa insha Allah markaan soo dhameysano isku soo noqonaynaa كسابة ujeedaan bizadan sida quruxda badan oo soo diyaarsanay marka cheese ayadana cheese caadi ahayn waay insha Allah hadan ovenkeena sii shidanayna insha Allah ovenkeena kan sii shidano marka ovenka la gelinaya adii 20 daqiiqo 20 minutes kadib isku soo noqonayna insha Allah bizadan ayadoo diyaar ah marka la socda please hadan ugu cusubtahay subscribe tanaga iloobin hadan la joogtayna comment like una sii sheegay asxaabtaada kaleete marka waa ka saabiidsadeen sidii noogu soo kartay noogu soo bislaatay caadi ma ahan ku dhahay marka sidaan qurux badan ay biisadeen noogu soo baxday waa biizis ka fudud caadi ahayn waaye insha Allah waxaan filayaa videoga ina ka heshaan bilaaw ila dhamaatina afiisteen ka hesheen insha Allah hadana sidaas iyo nabadgelyo khayran rajaynaya assalaamu calaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh